دكتور علي معو أويس oo Soomaali Cable kula hadlay isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi ayaa waxa uu ka hadlay cuntooyinka caafimaad ahaan loo baahan yahay in la qaato inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. warkan waxa faafahinaya wariyaha Maxamed Tolman. دكتور علي معو oo Soomaali Cable kula hadlay isbitaalkiisa ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan wadada Tobnaad ayaa sheegay in isbitaalku uu shaqeynayo 24 saac iyadoo xilliga habeenka ay joogaan dhakhaatiir kale. Bismillahir Rahmanir Rahiim. marka ugu horeysa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba adduunka dacaladeeda inaan iraado Ramadaan Mubaarak Ramadaan Mubaarak Ilaahay Ramadaanka khayrkiisa Allah na soo adiyo waxaan leeyahay Ilaahay si nabad ah noogu dhameeyo marka xigta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan reer Kenya inaan u sheego aniga waqti xaadir inaan ku sugnahay magaalada Nairobi xaafadda Islii 10 Street Mawabes International Hospital qaf Allah la qafkii dareynaya meeshaas uu noogu iman karaa hadda waliba waxaan ku sii darnay bisha Ramadaanka inaan habeenkii xataa aan qabsanayno ma aragtay qafkii dib qaba oo xanuun ku soo booday iyo qafkaas inaan meeshaas dhakhtar fariisino dhakhtar daaweyn karo oo wax qaban karo Ilaahay wax qabad iska leh sidoo kale Dr. Ali Macaaw Aweys ayaa ka hadlay cuntooyinka loo baahan yahay in la qaato xilliga afurka iyo suxuurta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan bisha Ramadaan in mataqaana cuntooyinka qaarkooda laga taxadaro waxaan leeyahay mar Allah markii la adimo aad mataqaana adinka aad maqasho saddex timir ah iyo koob shaah ma aragtay shaah ah ama kafee ah qaxwo kafeega maana qaxwo ah oo diiran inaad ku bilaabato taas aanu sheegayaa haddii aad ku bilaabato galaas biyo oo qabow ah haddaad ku bilaabato caloosha ayaa dhibaato kaa gaaraysa xanuun baa ku imaanaya calooshaada culays saaraysa markii shaahaas ama qaxwadaas iyo timirka ah cunto oo caloosha wax ay galaan markaas kadib ayaa la rabaa xoogaa biyo inaad cabto 2 ama 3 hambuuqad inaad cabto tartiib aad cabto adan daldalin markaas kadib waxaa la rabaa shurbad sambuuska waa cuni kartaa xabad sambuus laakiin shurbad waxa shurbada loo cabayaa wax kala ma caloosha wax culays ma qaadi karto tartiib xoogaa shurbad marka cabto caloosha waxay bilaabaysaa shaqay bilaabaysaa ilaa maalinkaas oo dhan bay gaajeysanta markii horena waxay u baratay maalinkaas oo dhan inay wax cunto haddana male marka caloosha lafteeda ayaa waalanaysa dhaysa war maxaase wax u jiraan waa inaad tartiib aad u tustaa saas markii aad mataqaana shurbada cabto oo xabad sambuusa cunto ka naso cuntada xoogaa biyo cab ka naso markaas kadib haddii nusko saac ama halko saac kadib cun haddii waxaa cunaysa marka caloosha wax waa qaadaysaa habeenkiina waxaan leeyahay 1 saac ama 2 saacadood hal la socdo hal la dhaqaaqo iska jira waxaad mataqaanaa xanuuna ku imaanaya calool xanuuna ku imaanaya cudur badan ku imaanaya maxaa dhacay haddii cuntada aad hal mar iska badiso caloosha buuxiso ma dhaqaaqi kartid waa fariisanaysaa waa seexanaysaa tacbaan baad noqonaysaa marka waxaan leeyahay bisha Ramadaanka caafimaadka ha lagu dadaalo haddii Allah idmo Maxamed Tolman Soomaali Cable Nairobi Kenya